dagaalkan waxa uu ahaa halgankii ugu dheeraa ee lagula dagaalamay guumayste qaaradda Afrika. xitaa noloshii hore ee ninkii lagu magacaabi jiray Winston waxaa qayb ka ahayd dhacdooyinkii uu kala kulmay gudaha ACC Khaatumo. sidoo kale gobolkani waa gurigii Suldaan Maxamed Cali Shiri oo ka soo jeeday Laas Qoray. sida ay xuseen diiwaanadii guumaystaha Ingiriiska, waxa uu ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay ee British Somaliland qarnigii 1900. waxa uu guumaystaha u masaafuriyey ninkaasi jasiiradda Seychelles, halkaasi oo uu ku guursaday haween deegaanka ah oo ka soo jeeda Seychelles, waxa uuna ku geeriyooday halkaasi sanadkii 1960. waa dhulkii ay ka soo jeedeen suugaanyahano Soomaaliyeed oo caan ka ah Soomaalida dhexdeeda, sida Cali Dhuux oo ka mid ahaa hal-abuurkii ka qayb qaatay maansadii ugu dheereyd abid Soomaaliya, taasi oo soconaysay 20 sano. maansadaasi waxaa qayb ka ahaa in ka badan 100 suugaanyahan, lamana joojin. sidoo kale waxaa ka soo jeeda Ismaaciil Mire oo tiriyey tixdii caanka ahayd ee ahayd Ragow Kibirka waa lagu jabaa taas ha la ogaado, taas oo ka mid ahayd gabayadii Soomaaliyeed ee saadaaliyey dhibaatooyinkii uu geystay xukunkii kaliya taliska ahay oo ugu dambeyntii noqday mid cagaha dhulka loogu dhuftay. mar kale, deegaanada ACC Khaatumo waxaa ku yaala dooxada Nugaal. waa dhul ballaaran oo safaano ah kuna habboon dhaqashada xoolaha. dhinaca Sanaag waa gobol ka koobsaday dhammaan wax kasta, sida cimilo cajiib ah oo u eegtan Mediterranean-ka, halkaasi oo buuraha Calmadow ay ku fidsan yihiin xeebta badda cas, golofka cadan loo yaqaano. halkaasi waxaa sidoo kale ku xeeran buuraha loo yaqaano Saraar, iyo sidoo kale dhul bannaan oo siman. ma aha oo kali ah mid si muuqaal leh oo dabiici ah u qurux badan, balse sidoo kale waa dhul hodan ku ah wax soo saarka beeraha iyo macdanta naadirka ah. waxaa xusid mudan sanadkii la soo dhaafay in halkaasi laga dhoofiyey in ka badan 300 oo milyan oo macdan lagu iibsaday, taasi oo si sharci darro ah looga dhoofiyey gobolkaasi. 300 oo milyan waxaa laga bixiyey macdan laga qaaday gobolkaasi. marinka degmada Buuhoodle waxay isku xirtaa dowlad goboleedka Soomaalida ee Itoobiya, Somaliland iyo Puntland. waxaa alaabta loo kala geeyaa halkaasi dadka deegaanka oo ah meesha ugu weyn ee badeecada lagu kala iibsado gobolka. sanadkii 1960 kadib markii gobolka laga xoreeyay guumaystaha, inta badan shaqaalihii dowliga ahaa ee Somaliland waxa ay ka yimaadeen ayagu magaalada Cadan, halkaasi oo awoowayaashood ay uga haajireen ACC Khaatumo una sii guureen Yemen intii lagu geli jiray dagaaladii guumaystaha ee 1900 dhacayay. gobolkani waxa uu hodan ku yahay dad leh karti iyo sidoo kale aqoon. waa waxa loo yaqaano talented human resource. ilaa iyo hadda gobolku waxa uu yahay garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaarayaan siyaasiyiinta ka soo kala jeeda Somaliland, Puntland iyo kuwa heer federaal ah, taasi oo awoodda ka xayuubisay shacabka deegaanka. doodaha iyo sidoo kale sheegashada iska soo horjeeda ee ku saabsan aayaha dadka gobolkan muhiimka u ah ayaa waxa ay yihiin kuwa dhumiyey goboladan ku hardamaya. dadka deegaankuna waa ay ku dhex wareereen, laakiinse maantay waxa uu ifay shumac aad iyo aad muhiim u ah, taas oo ay u muuqato inay gacanta qabsadeen iyagoo isku wada duuban. allaha u naxariistay Dr. Cali Khaliif Galeyr waxa uu ahaa ninka tan iyo burburkii Soomaaliya u halgamayay sidii gobolka uu door shariif leh uga qaadan lahaa dhismaha federaalka cusub ee Soomaaliya. inkastoo uu dunida ka tegay, Ilaahay ha u naxariistee, waxaa hubaala in halgankiisii laga miro dhaliyey, isla markaana uu dhoosha ka qoslayo. haddii uu adduunka joogi lahaana uu ahaan lahaa mid aad ugu faraxsan. dowlad goboleedka cusub ee ACC Khaatumo waxa uu ka dhashay dhiigbixii 2023 kadib markii kacdoon ballaaran oo shacabka ay si cad u diideen waxa loo yaqaano Somaliland, taasi oo ay u arkayeen guumaysi ama dulmi dul hoganaya. markaan dulmigii waa ay iska qaadeen
xukuumaddii Muuse Bixi ee Hargeysa ka timidna waa la ceyriyey. Shacabku waxa ay fahmeen xuquuqdooda, waxay u arkaan dulmigaasi inuu ahaa waayo xun oo soo maray, waxa ayna haatan u taagan yihiin sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladaasi xun oo soo martay. Haatan iyo dan waxaa jira caqabado ay tahay in si gooni ah isha loogu eego, taasi oo dowladnimada SCC Khaatumo laga yaabo inay kufiso. Caqabadaha haatan u baahan xirfad siyaasadeed oo mid heer sare ah waa sidii loo heshiisiin lahaa SCC iyo Puntland iyo sidoo kale SCC iyo Somaliland. Taasi waxay muhiim u tahay in shartooda iyo dhibtooda dadka SCC Khaatumo iyo dowladda Curdunka ah ay ka badbaado. Haddii taasi la gaari waayo, waxaa suuragal noqonaysa in la helo sawir ka ballaaran sida haatan loo fiirinayo, taasi oo halis gelin karta nabadda iyo heshiiska qaran ee maanta halkaasi ka jira iyo sidoo kale maamulka cusub ee lagu dhawaaqi doono.